The former president of Zimbabwe, Robert Mugabe, has died. He's one of the last leaders of Africa's independence struggles. Assalamu alaikum. madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Roberto Mugabe ayaa lagu dhawaaqay inuu geeriyooday wuxuuna ahaa 95 sano jir. Roberto Mugabe ayaa ahaa hogaamiye caan ka ah Afrika iyo dunida wuxuuna talada dalkaas haystay muddo dhan 30 sano intii aan lagu qasbin inuu kursiga ka digo sanadii 2017 markii ciidamada dalkaasi ay ka hor yimaadeen xukunkiisa. Mugabe ayaa ku geeriyooday dalka Singapore oo xaalad caafimaad loo geeyay bishii Abriil ee sanadkan waxaana geeridiis xaqiijiyay qoyskiisa. Wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka Zimbabwe markii uu xorriyadda qaatay dalkaasi sanadii 1980 wuxuuna kadib noqday madaxweyne 1987 isagoo talada dalkaasi hayay ilaa sanadii 2017. Roberto Mugabe wuxuu caan ku ahaa inuu aad ula dagaalamay cadaanka dalka Zimbabwe la dejiyay ee dhulka dalkaasi haystay wuxuuna muddo dheer ahaa nin aad ugu horjeeda wuxuuna dadka madow ee dalkaasi gaarsiiyay adeegyo caafimaad iyo waxbarasho sanadihii hore ee xukunkiisa waxaana lagu xusuusan doonaa halgankiisii dheeraa ee dadka cadaanka uu la galay iyo afrikaanimadiisa. Madaxweynaha xilka haya ee Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska iyo dadka Zimbabwe wuxuuna ku tilmaamay inuu ahaa aabihii Zimbabwe iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi.